kole wuxuu dhahay horta shaqada waan ku siiyo dhahay bishiin waa $200 laakiin adiga wili imaanan iga gaar bixin oo dhahay maxay tahay garbaxa sheegaysiisa dhahay shaqada si walaaltinimo ii siisee waxaana ku direys maxay tahay Cayni ma ahan magaceeda saxda ah waxa ay ku nooshahay magaalada Muqdisho iyada iyo aabaheed kaas oo ah waalid waqtigu uu ka hiiliyay wax dhaqaalahana aanan haysan si gabadhiisaan yar ay horumar u gaarto iyadoo ka duuleysa horumarinta nafteeda iyo tan waalidkeeda waxa isku dayday inay shaqo u doonato dhowr xarumood oo kala duwan oo ay ka mid yihiin jaamacado, hoteelo iyo shirkado balse arrinta la yaab kale waxay noqotay in gabadhan lagu dirqiyay in baahida shaqo ay hayso darteed inay ku bedelato galmo aan sharci ahayn markii ay ka diidana waxa ay weysay codsigeeda shaqo haddaba ha inooga sheekayso dhacdada koowaad ay la kulantay gabadhan oo aan u qarinay wajigeeda ilaalinta sumcadeeda iyo khatar amni arinta ugu muhiimsan waxa waaye maalin ayaan ka doontay jaamacadaha ku yaala dalka Soomaaliya mid ka mid ah waxaan ka doontay shaqo nadaafad ah lagaga sheegay mid ka mid shaqaalooyinkaas qaybta u fadhiya shaqada dadka siiyo oo aan ka doontay lambarkiis gaar ahaan wuu isiyay oo wuxuu dhahay shaqadu way banaan tahay bishiina waa $200 hadii aad u baahan tahay nadaafad waa soo gali kartaa waa midaan jaamacadii markaa tagay wuxuu igeeyay jaamacad aysan micnaha oo laga qabanaynin jaamacad laga guuriyo oo wax micnaha yaalino oo dhamaatay oo igeeyay wuxuu dhahay meesha ka shaqeynayso waa halkan sida loogu shaqeeyaa dhaa meel micnaha oo wada bus waay oo mar hor laga guuray mana micnaha ilama ah meeshan in shaqaale loogu baahan yahay sidee micnaha qof ma joogin cid leed aniga asaa joognay aniga marka cabsanaya ilbaabka galay asiga wuxuu idhaa soo gal waa halkan oo idhaa markaas aan dhahay halkan qof kuma jiro waana meel oo wasakh ah qof oo micnaha mar hor ugu dambeysay waa sida u gala oo nafsideeda ku aamina markaas oo idhaa horta adiga shaqo marabtido aad horta soo galba hadaa cabsanaysid micnaha waaba iska bixi kartaabo shaqo kuma hay okay anigoo sida soo cabsanayo salii nabiga afka iska qabsada oo ilaahay garabka micnaha garab weydistay oo waan galay kadib markaan galay oo wuxuu idhahay 3 qol wuxuu ii furay oo eber oo baaba oo ii furay kadib uu idhaa waa kina meesha ka shaqeynayso waa halkan nadaafada aad ka qabanaysid okay aan dhaw walaalkayga aada uu mahadsantaa dhaa shaqada maadaama isiisi aan dhahay okay markaas sidaas u soo baxnay oo aan imaanay qaybtii maxay dhahaan banaanka u soo socono markaas oo ilaahay istaag ay abaayo kole wuxuu dhahay horta shaqada waan ku siiyo dhahay bishiin waa $200 laakiin adiga wili imaanan iga gaar bixin oo dhahay maxay tahay garbaxa sheegaysiisa dhahay shaqada si walaaltinimo ii siisee waxaana ku direys maxay tahay kadib uu dhahay garbax waa dareemi kartaa codsi iga tahay abaayo ina ii fududeysa rajeynaa codsigeyga ina ii sii sheegtay soo kama fiicnaa dhaa codsigaaga hadii lacagta dhahay diyaar waa marka shaqada bilaabo bish ugu horeyso inta ii soo raadisay waa ku jira waa ku siinaya markaas oo idhahay ma oho dhaa lacag inaadan lacag haysan oo u jeedaa lacag wax muhiim ah haysa wax muhiimka ka codsanaya ina isi sido idhaa waan dareemi kartaa okay hadii sidaas taa mayaan dhaa maribiyaan dhaa wax muhiimka waa dareemi kartaa wuxuu idhaa maadaama gabar tahay oo anigana micnaa wiil dhalinyaro aan ahay waxyaala lawaankan waa ogtahay oo dhahay micnaa waan dareemi kartaa oo dhahay ina micnaa ii fududeysna rajeynaya waxyaalaha micnaa waxaa ka mid ah ina micnaa aan wada galmoon ama micnaa waxyaala aan sameeyno haddii aan raali ka tahay shaqadan diyaar waa beri baa soo gali kartaa sidoo kale waxaa jirta dhagar kale oo ay la kulantay gabadhan laakiin ugu dambeyn ka badbaaday maalmaha kamid ah gabadha shaqo ka codsaday gabadhi marka waxay igu dhahday hotelkaas shaqo ka banaan wiilkan lambarkiisa ku siina wiilkan waco okay gabadhi markaan wacday oo lambarka isiisay wiilkiya micnaa wacday kadib wiilku wuxuu idhaa waa runtii qofta ku soo sheegtay shaqo way ka banaan tahay hadaa soo galaysid adiga waa ugu dhahay kadib markii oo sis igu dhahay waxaan dhahay bishi waa imisa dhahay $400 dhahay marka $400 dhahay aad ugu farxay oo waan micnaa aad farxadeeda lama soo koobi karo oo waxaan dhahay maanta ma sha Allah ilaahay ku soo warmay oo bishi $400 da qaadanaysa nadaafad aad wallahi nolosha gurigiin uu buuxsan kartaa isdhaay kadib markii sidaas dhacday wiilku wuxuu idhahay waxa laga rabaa ID ku gashid meesha iyo waxyaala oo damiin ah
laga rabaa oo dhahay okay insha Allah waa soo raadin doonaa dhaa shaqada laakiin qofba ha iga siin dhahay aniga aad ugu baahan dhahay wiilku wuxuu ogaaday markii in shaqada aad ugu muhiimsanahay oo duruufana ay haystaan wiilku wuxuu dhahay abaayo dhaa horta ana shaqale i weydiisiyo dhaa macnaa wixina ima weysii weydiino dhaa meesha laga sameeynayo sida akhbaarta ay tahay waxaan u jeedaa dhaa qof oo macnaa hami leh oo ina shaqaysato oo daacad u tahay u jeedaa oo dhaa macnaa dad badan jiraan oo sidaan oo ka sii baxeen oo dhaa okay shaqooyinka waxa kamid oo dhaa oo la qabanayo dhahay oo waxa jira nadaafad waayo dhahay laakiin haddii macnaha soo heshiiso $10 aad soo gashid oo shaqada nadaafadda oo hotelkan ka shaqeynaysid waa mara mustaqbalkaada meesha ku ba'ay oo maxaa kamid in macnaha oo markaa oo macnaha qolka soo galaysid waa qolala aad hagaajinay aan nadiifin qof biyo u keenin nadaafada haysa inta laga taabto gadaal laga soo madax xabadka laga taabto kama hadli kartid oo idhaa oo sidaas yeelay markaa waxa yeelayo dad oo xoodha dibadaha ka imaadeen iyo dad Soomaali oo macnaa oo dhaqankii ka tageen oo dhahay oo gabdho badan sidaas oo kale ku hayaan oo aan ka hadli karin oo dhahay kuwaas aan maanan keenin laakiin shaqada adaa macnaa aan ku keenuyo oo dhahay marka wuxuu dhahay lama sidaas da ku gali kartid waakas oo macnaa gabarna waa taa oo dhahay hadii mustaqbalkaada barbtid oo dhahay in sidaas lagu taabto waxa la wadaagtay gabarta waa la wadaagay oo gabar ayaa dhahay hadii gabar tahay mayo dhahay mustaqbalkaada in lagu ciyaaro ma rabo arintan hadii meeshan soo gashidna oo dhahay waa mara macnaha oo xabadkaada laga taabto gadaal laga soo maray meesha ku ba'ay oo dhahay hatta oo dhahay had 400 ku shaqeynayo oo dhahay waxaaba lagu dhihi karaa oo dhahay dhacdadii koowaad ay la kulantay gabadhan haddii aan ku noqonno waxaa dib maalmo kadib u soo rogaal celiyey xiriirka ninka ka ah kaaba shaqaalaha jaamacadda ay ka doonatay shaqada kaas oo la wadaagay fariimo uu kaga dalbaday mar kale inay wada kulmaan una fududeyso galmada uu ka doonayay haddaba maxaa ku kalifay in shaqo ay raadiso gabadhan oo 19 sano jir ah wallaahi waxa igu kalifay arrimo dhowr ah hooyadeedii aabaheeda kala tageen hooyadeed waxay jirtaa Sanca jirtaa Yemen dagaal xaga ku haystaan aabaheegana waa macallin dugsi xaasoo leeyahay dabcan eedana waa la joogaa waan dareemi kartaa marka eedana joogtid xanuunka leedahay waxyaalahaas ay ugu kalifay iyo waxbarashadeeda sida uu macnaa ugu dhameysto iyo hooyadeeda sida uu ka caawin wallaahi iskuulka waxaan ugu baxay fasalka 8aad shaqo la'aanta iyo nidaam la'aanta dalka ka jirta ayaa keentay in dhalinyaro badan ay dalka ka tahriibaan sidoo kalena haween badan ay kala kulmaan marka ay shaqo u doontaan xarumaha dalka ka jira caqabado badan tani ayaana sii noqon doonta mid sii jiri doonta haddii aan wax laga qaban